Ninkan waxa uu ka shaqeeyaa warshad soo saarta biyaha sifaysan. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa laga soo eriyay shaqadiisa isagoo lagu eedeynayo gaabis iyo soo daahis joogto ah oo aan wax cudurdaar lahayn. Waxa uu ku soo noqday xaaskiisii wanaagsaneyd asagoo murugsan, iyadoo og in loo soo eriyay gaabis xaggiisa ah, haddana niyadda ayay u dejisay. Markiiba waxaa maqashay gabadh yar oo uu dhalay. Gabadhaas oo da'deedu ay ahayd 12 sano, si kaamil ahna u xifdisay Qur'aanka Kariimka. Waxayna ku dhahday, "Aabbo, adiga salaada waqtigeeda kuma tukatid, sigaarkana waad cabtaa. Habeenkii oo dhanna waxaad ku soo jeedaa daawashada TV-ga. Dambiyada oo dhan waxay kuu horseedi karaan inaad shaqaba ku raagin. Annagana waxay noo horseedi kartaa inaan noqono qoys sabool ah. Haddii aad Alle u toobad keento, arsaaqada ayaa lagu waasicinayaa." Sida uu yiri Nabigeena, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, qofka waxaa risiqa loogu diidaa dunuub uu asaga galay. Sidoo kale, Nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wuxuu yiri, qofkii jecel in loo waasiciyo arsaaqada, cumrigiisana loo barakeeyo, Ilaahay ha ka cabsado, qaraabadiisana ha xiriiriyo. Aabbahan waxa uu ka carooday hadalka gabadhiisa yar. Waxa uuna galay qolkiisa si uu u seexdo. Markii la eedaamay salaada casir, waa uu soo toosay, waxa uuna ka baxay guriga. Saacad kadib waxa uu ku soo noqday gurigii asagoo wada kartoon ay ka buuxaan caagado eber ah. Markiiba waxa uu galay jikada. Waxa uu daartay shooladii. Waxa uuna dabka saartay digsi weyn oo biyo ah. Waa uu yar sugay inta biyaha ay ka karkarayaan. Markii ay xaaskiisu weydiisay waxa uu sameynayo, waxa uu ugu jawaabay asagoo aan ka gambanaynin, "Biyahan waxaan ku cabbi doonaa caagaggan oo aan ka soo qaatay shirkaddii hore ee aan u shaqayn jiray. Kadibna waxaan ka iibin doonaa bulshada si aan u bixiyo biilka adiga iyo gabadhaada yar." Xaaskiisa waa ay ka murugootay hadalkiisa, waxayna u sheegtay inuu iska dhaafo khiyaanadan uu sameynayo. Waxaa imaatay gabadhooda yar si ay u kala qabato hooyadeed iyo aabbaheed. Intii ay isqabqabsanayeen, waxaa soo dhacay digsigii ay ku jireen biyihii kululaa. Gabadhii yareed waxa ay gacanta ka soo jiiday aabbaheed inta biyaha kulul aysan ku daadanin lugihiisa, waxayna u mahadcelisay Ilaahay. Waxa ayna ku dhahday aabbaheed, "Aabbo, fiiri naxariista Alle. Tani waa digniin kaaga timid xagga Eebbe, adigoo weliba ku caasinaya goor kasta. Haddii Alle uu ku qaban lahaa khaladaadkaaga, biyaha kulul waxa ay ku daadan lahaayeen lugahaaga, waxaana dhici lahaa dhib badan oo annaga aanan filanaynin." Aabbahani waa uu ilmeeyay. Waxa uuna laabta galiyay gabadhiisa yar iyo xaaskiisa. Markiiba waa uu soo weysaystay. Waxa uuna u toobad keenay Ilaahay. Waxa uuna Alle ugu mahadceliyay xaaska wanaagsan ee uu siiyay iyo gabadhiisa yar ee taqiyada ah. Salaada maqrib kadib waxa uu kaxeeyay gabadhiisa yar si uu hadiyad uga soo iibiyo suuqa. Markii ay waddada marayeen, waxaa soo ag istaagay gaari. Waxa uuna weydiiyay meel uu caawa ku caweeyo. Inta uusan hadlin, aabbaha waxaaba jawaabtay gabadhii yareed. Waxa ayna ku dhahday ninkii kaxeynayay gaariga, "Waddadan waxay ku geynaysaa meesha lagu caweeyo, waddadan kalena waxay ku geynaysaa masjidka si salaada maqrib aad u tukato inta aysan ku dhaafin." Ninkan waxa uu aad ula yaabay jawaabta gabadhan yar iyo xigmaddeeda. Waxa uuna ogaaday in waddadan ay uga digayso ay tahay waddo shar ah.
wadadan kale ay u tilmaamtayna ay tahay waddo khayr badan. Ninkan waxa uu ka soo jeestay xumaantii uu ku jiray, waxa uuna u soo laabtay Ilaahay, waxa uuna ka soo degay gaarigii. In badan waxa uu u mahadceliyay gabadhan yar, waxa uuna siiyey warqad yar ay ku qoran tahay taleefanadiisa iyo cinwaanka shirkadda uu ka shaqeeyo. Wuxuuna u sheegay inuu doonayo inay la soo xiriiraan si uu in badan u caawiyo, iyo in uu ku farxi doono haddii ay la soo xiriiraan. Maalmo kadib, aabbihii waxa uu la xiriiray ninkii gaariga kaxeynayay. Ninkanna waxa uu ku wargeliyay aabbahani in uu u hayo shaqo fiican, kana mushaar badan shaqadii hore ee uu ka shaqayn jiray. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. haddaba daawade haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan subscribe saar si aan u soo badino muuqaalada noocan oo kale ah. mahadsanid.